السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. aad baa idin salaamaya walaalayaal dhammaantiin. Maanta cashirkeenu wuxuu ku saabsan yahay fiyaatifaal oo ah accusative. Channelka haddaad ku cusub tahay waxa aan ku soo bandhignaa waxyaabaha ku saabsan Jarmalka iyo barashada luqadda Jarmalka. Accusative-ku waxa uu tilmaamaa objectiga ku jira zaatska ee ah qofka ama shayga uu ficilku ku dhacayo ama verbigu. Su'aalahan ayaa la isweydiiyaa oo ah wen ayo, was maxay iyo wohin halkee oo marka aad tilmaamaysid dhinac jiho oo kale ah. Sida aan ku baranay luqadda Jarmalka waxaa jirta 3 article. 3 article-na way isbedelaan hadba xaaladda ay ku jiraan. Hadda accusative ayaabaan dhiganaynaa. Accusative-kana say isku bedelaan tusaalaha maan ku arki doonaa. Ich kenne den Mann. Waxaan garanayaa ninkan. Ich waa anigii oo ah subject. Kenne waa verbigii garashada. Den Mann yaa la garanayaa waa ninkii. Ninkan den Mann waa qofkii uu ku dhacayay ficilku. Marka accusative-ka la yahay der Mann-kii asalkiisu der Mann buu ahaa. Hadda wuxuu isku bedelayaa den Mann. Markaas waxaad adeegsanaysaa wen kennst du ayaad garanaysaa. Ma isticmaalaysid wer kennst du. Du kennst das Kind. Adigu waxaad garanaysaa ilmihii. Adigu waa subject oo waa qofkii ilmaha garanayay oo waa adiga waa nominative. Markaas waxaad isticmaali wer kennt das Kind ayaa garanaya ilmahan waa nominative. Was kennst du ayaad garanaysaa das Kind ilmahan ayaad garanaysaa. Das isma bedelayo accusative-ka. Das-tiisu ku joogaya. Haddaba article-kii diida ee u yaalay dhiddiga iyo dadka badan ee jamaacada ah saanay noqonayaan. Du rufst die Frau an. Waxa aad la hadlaysaa ama aad u tilfooninaysaa gabadha. Die Frau waa die Frauen iyadna. Sie hasst die Menschen. Waxay necab tahay dadka. Die Menschen. Article-kani isma bedelayo oo die unbuu ku joogayaa. Ali und Hassan gehen die Straße entlang. Jawaabtan waxa u taalaa wohin gehen Ali und Hassan. Halkeebay tegayaan Ali iyo Hassan die Straße. Dikadan halkan ay marayaan dariiqan. Saa u soo sheegnay die waxa wati isma bedelayo accusative-ka. Preposition mit accusative. Hadda waxaanu imanaynaa waxaa jira prepositional accusative-ka u gaar ah oo lagu garto sida für oo tusaalaheegu yahay das Schnitzel ist für den Mann am Nachbartisch. Hilibkan waxa iska leh ninka miiskan garabkiisa ah. Markasta oo preposition-gan uu ka hormaro magaca waxa uu isku bedelayaa accusative sida für den Mann. Für waa lahaanshihii marka ay ka hormartay der Mann waxa ay isku bedeshay den Mann waana accusative. Imika waa tusaalihii labaad oo ah ich kümmere mich das Kind. Waxa aan daryeelayaa ilmahan. Das Kind markay ka soo hormartay preposition-ga waa das Kind isma ay bedelin. Saa hore u soo sheegnayna das isma bedelayso. Das-tii unbay ku joogaysaa accusative-ka. Preposition-gan magac kastuu ka soo hormaro wuxuu uu noqonayaa accusative.
hadda waa tusaalihii saddexaad oo ah durch. Der Kellner geht durch den Flur von der Küche ins Restaurant. wiilkii mudalabka ahaa waxa uu dhex maray durch waa dhex maris wuxuu dhex maray barandihii ka tegayay madbaxa ee u tegayay restaurant madcamka tegayay iyuu dhex maray. markasta oo kelmadan durch ay kasoo hormarto prepositiongaas ay hormarto magaca waxa uu isku bedelayaa accusative. durch den Flur asalkiisu wuxuu ahaa der Flur. hadda waa prepositiongii afraad oo ah ohne la'aanta. Nimco kann die Speisekarte ohne ihre Brille nicht lesen. Nimco ma akhrin karto buugga laga eegto cuntooyinka muraayadeeda la'aanteed. markaas ohne ihre Brille. Brille waxay ahayd die Brille, saas daraadeed ihre baa u dambaysa Brille. markasta oo ohne ay kasoo hormarto prepositiongan uu kasoo hormaro magaca waxa uu noqonayaa accusative. sidoo kale gegen waa prepositionada u gaarka ah accusative-ka. Inge entscheidet sich gegen den Wein. Sie bestellt ein Glas Wasser. Inge waxa ay qaraar ku goosatay in ay kasoo horjeedka khamrida waxa kasoo horjeeda khamriga ah ay dalbato oo ah biyo. markasta oo gegen ay ka hor imato prepositiongan uu ka hor yimaado magaca accusative ayuu isku bedelayaa. verbiyo waxaa jira u gaar ah accusative-ka oo loo isticmaalo sida aad tablogan ka arkaysiin waxa ku yaala verbiyaal. verbiyadan oo ah kuwii loo isticmaalayay accusative-ka. haddii aad u baahan tahay videoga waad joojin kartaa, waa ka qoran kartaa ama waad ka akhrisan kartaa. markaas waxaas tabloga ku qoran oo dhan accusative-ka u isticmaali kartaa. gabagabadii videoga soo gaadhnay waxaad arkaysiin hadda waa taabeelle waxa ku dhex jira nominative oo ah subjective iyo accusative oo ah videogan maanta dhiganayno oo ah objective. sidaad u arkaysiin nominative-ka erste Fall waa soo dhiganay. der waa bestimmte Artikel. ein waa unbestimmte Artikel. feminiinka diiga isma bedelayso. daasta sidoo kale isma bedelayso oo di iyo daastii unba iskaga oolaysaa. sidoo kale pluralkuna isma bedelayso labada dhinacba. waxa isbedelaya dhinaca accusative-ka der oo noqonaya den bestimmte Artikel. einen na unbestimmte Artikel. fadlan sii faafa videoga si ay dadka kale uga faa'iidaystaan. like iyo subscribe ha ka iloobin.